dhalinyarnimadu waa shay qaaliya waa fursad habiya waxa muhiim ah qof kastaba oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala fursadaas uu siiyay qaaligana ah inuu ka faa'iideysto Nabi عليه الصلاة والسلام وحكى الصحيحين ويري لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال qofka sabab afar su'aal ayaa la weydiinaya cumrigiisa iyo noloshiisa oo dhan ayaa wax laga weydiinaya gaar ahaana waxa su'aal gaar laga weydiinaya dhalinyarnimadiisa waxa uu qabtay ciidanka Nabiga عليه الصلاة والسلام uu diyaariyay wuxuu qaa'id uga dhigay oo hogaaminayay muslimiinta Usaama ibn Zayd markaas ayada ah waa 18 jir oo ficlan macrakadii way ku soo guuleysteen gaaladii waa la soo jabiyay qaar badanna waa laga dilay qaar badanna waa laga soo qafaashay hal qof oo saxaabadii jeeshka kamid ahna wax kuma gaarin Muhammad ibn Qasim al-Thaqafi waa ninka furay biladu as-Sind biladka loo yaqaan oo Pakistan iyo Hindi iyo waxa ka agdhow 19 jir iyo 20 jir qaa'id muslimiinta looga dhigay oo qaarad dhan furay النبي عليه الصلاة والسلام وحلقه وري إنه يري لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش وحسود معاوية بن سفيان رضي الله عنه وإلى إن لبجر وكل الدول أدري عيدا اسكن دي لكن أين أقرنين ونكبوا ليسن وحاهدنا محاولة لوات سمير اسكن دي سليمان بن عبد الملك الدولة العثمانية مركي تمد وحاسودي بايزيد الأول مراد الثاني ومر فربضا انتو ويسا كبوليسا الله سبحانه وتعالى وحو قري محمد بن الفاتح أصور لنيرا وحلوشا يدأديسا مركي وفري إنا إهي دور لباتن جر كوي لباتن إمه حدودس إن الله سبحانه وتعالى نغمه ذنو مسجد كي مسلمين تا أي فرين وهدنا markii laga qaalib noqday muslimiinta fiima bacdu kaniisad loo bedelay ila ay Ataturk mutxaf uu ka dhigay in maanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku soo celiyay daartii muslimiinta oo uu ka dhigay masjid Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu xusayo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala looga mahdiyo muslimiinta oo dhan ay ku farxaan